بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته إن شاء الله درسنا نوحو كصاب السنان دونا قبول الأعمال أعماشها إيوه سيابها الله وكو أقبل سبحانه وتعالى cibaado kasta aynu samayno hadday xaj tahay hadday cumro tahay hadday salaad tahay hadday soon tahay iyo hadday sadaqad iyo hadday cibaado kala tahayba waxaynu rajaynaynaa in Allah inaga aqbalo subxaanahu wa tacaala laakiin shuruud ama asbaab ama waxyaabo bay culimmadu tilmaamaan sababa in qofka cibaadada laga aqbalo cibaadada waa wada samaynaa laakiin kuma cibaadadiisa la aqbalay Allah og subhanahu wa ta'ala sida awgeed baa waxa laga sheegaa salafkii saxaabadii rag kamida layta sha'ri man al maqbul fanuhni wa man al mahrum fanu'zi waxa laga sheegaa Ali ibn Abi Talib inuu oran jiray waa kuma qofka talow laga aqbalay amalka aynu tahniyadaynay waa se kuma ka laga xaraam yeelay in laga aqbalo أن تعزيه أنو دقناه ابن مسعودنا وحلقة شيء شرين ويورن شري وارتا كل دوا أيها المقبول هنيئا لك أيها المردود جبر الله مصيبتك كعبادات كلقا أقبل يو بقادم باكو سقناتي كعمل كيسي لسوع علي يو مصيبة هذا الله كو كبابو ورن شري تامعنا هذا حويان عمل كوين وضا صمينينا لكن قبولك حق قالوا كحرين قفك مؤمن كان وحا وين وكفكر وحي ويان عملك يريد سماها يبنديس وعملك قبول كيس النبي آدم ودتك يقول الرجال ربي نوقع قصودا به الدبدوده markii ay qurbaanka geysteen midna waa laga aqbalay midna laga ma aqbalin kii laga aqbalay ilaahay wuxuu ku tilmaamay inma yataqabbalu Allahu min almuttaqin ilaahay wuxuu wax ka aqbalaa kuwa alle ka cabsada qubulka waxa gaadha dadka manzilatu taqwa gaadhay ayaa gaadha aakhira aad bay u naxdin badantay inaad timaado adigoo khayr rajaynayay laakiin lagu yiraahdo waxaagii waxba kama jiraan dad badan oo gaaladu badantay ilaahay wuxuu leeyahay waqadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura waxaanu soo horumarinay buu ilaahay leeyahay wixii shaqo ay shaqaysteen waxaanu ka yeelaa maxay haba'an manthura board la saydiyay ama siiga la saydiyay wabada lahum min allahi ma xaqa alle waxa uga muuqda baa leeyahay ma lam yahtasibu waxaanay filanaynin qof عمل سميه إسلها والله أقبلي وآخر مركو تقو وحي ورجيني وحانا هيني كسهر بحان إلهي بالقرآن كوحو كله يقول هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا ما يدين شيئا كو عمل كودو هوغي خساري الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا وكو أدون كينتي شوغي بعمل كودو لما أن لا أقبلين iyagu samoodayay in acmaasha laga aqbalay idan ayuha alahibba ilahi wuxuu leeyahay waman araada al-aakhirah wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura ninka aakhira doonaya acmaashiisa ibtigaa wajhi illahi ku doonaya oo aakhira u shaqaystay wa sa'a laha sa'yaha amalka aakhira la aqbalana la yimid isagoo mu'mina فأولئك كان سعيهم مشكورا كوا سعي قد ومشكور أي مقبول ومد لوغم هدنقه ومد الله سبحانه وتعالى كأبا المريم هذا أيها الأحبة إلهي سبحانه وتعالى وغني غني عن أعمالنا مركهور وحين الشقين نردن إلهي غني بكيه لكن وحين الصمين إنه إلهي وحلي واندينك شكر نقيا وايدنك أبا المريم إلهينا وحنا له ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه نك الله سبحانه وتعالى وما هذا نقطع عديس سيدي ولي ماذا
camalkaa abaalmarkeeda adaa iskale baa ilaahay leeyahy waman kafar fa in allaha haniyun xamiid ciddiisa ka gaalowda ilaahay hani buu ka yahy waana ka maarmaa in takfuruu fa in allaha haniyun cankum walaa yardaa licibaadihi اlkufr wain tashkuruu yardahu lakum haddaa gaalowdaan ama ilaahay nicmadiisa dafirtaan ilaahay hani buu idinka yahy baa la yidhi isla markaana idinlama jeclo gaalnimada haddaa shukri naqdaanna yardahu lakum raallu idinka noqonaya haddaba qofka mu'minka ah waxaa saaran camalka intaanu samayn iyo markuu ku dhex jiro iyo markuu dhammeeyaba waxa uu ka warwaraa waxa weeyaan camalkani ma yahay mid alle talow raalli ka yaho aqbalayo waa isagoo daaco ah ayaad haddana isweydiinaysaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ma kaa aqbalaya dadkii mu'miniinta ahay mushfiqiin waxay ka ahayeen camalkooda ilaahay qur-aanka wuxuu leeyay waladiina yu'tuuna maa aatow waquluubuhum wajila annahum ilaa rabbihim raajicuun waladiina yu'tuun ay yucطuun kuwa bixinaya baa la yidhi maa aatow waxay bixinayaan ee sadaqa ah ee acmaal saalixa ah waxay wanaag la imanayaan kuwa la yimi wa quluubuhum wajila iyadoo qalbiyadoodu ay cabsanayaan baa ilaahay yidhi wuxuu samaynayaana waa taaco haddana cabsi baa ku jirto cabsidu xaggay ka timi talow rabbi ma kaa aqbali buu ka cabsanaya caaisha radia allahu canha wa can abiha ayaa waxay tidhi ilaahay rasuulkiisa waxay weydiisaa aayadatan ilaahay rasuulkiisa ubay tidhi aayaddan ilaahay leeyay waladiina yu'tuuna maa aatow waquluubuhum wajilatun annahum ilaa rabbihim raajicuun ahum yashrabuuna alkhamra wayasriquun kuwa kani ma kuwa khamrigana caba ee tuugadana sameeyaa oo markaa ninkii xumuu samaynaya wuxuu is leeyay ta waxan yar ma laga aqbali doonaa u la yimi wuxuu nabigu ku yidhi laa yaa binta sidiiq kuwaa maaha kuwa laga hadlaya walaakinahum aladiina yasuumuun wayusalluun wayatasaddaquun wahum yakhaafuuna an laa yuqbala minhum nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam waa kuwa soomaya oo tukanaya oo sadaqo la baxaya oo welina cabsiyi ku jirto ilaahay ma idinka aqbali doonaa ulaa'ika yusaaricuuna fi lkhayraat baa ilaahay yidhi marka kuwaa cabsidaa qaba waa kuwa khayrka u degdegaya baa rabbi leeyahy subxaanahu wa tacaala xadiidka tirmidiya ibni maaja baa warinaya sheekh ilalbaanina saxiix buu ku tilmaamaya su-aashu waxay tahay haddaba mataa yuqbalu lcamal goorma camalka la aqbalaa ilaahay qur-aanka wuxuu inoogu tilmaamayaa ambiyo saalixiin ducaysanaysa oo leh waan acmala saalixan tardaa ilaahayo waxaan ku weydiisanayaa camal wanaagsan oo aadna raalli ka tay markuu raalli alle camalka ka noqdo ayuu maqbuuliyey haddaba laba shay baa jira waxa la yidhaahdo sixa inuu camalku asaxo oo mujzi uu yahay aakhiro aan lagu qabsanaynin iyo inuu camalku maqbuuliyo la aqbalay hawaab laga helayo waa laba shay oo kala gedisan sixadu inuu camalku asaxay qubuulku aslan wuxuu ku xidhan yahay sixada oo camalku haddaanu marka hore asixin maqbuulba maaha laakiin waa in sixadaasi wax la jiraan asalku waa maxay maalan wuxuu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam xadiidka muslim laa yaqbalu allahu salaat bigayri طuhuur ilaahay ma aqbalo salaad طahaaro la-aan lagu tukaday waayo shardun min shuruudi sixati salaa baa maqan salaad طahaaro la-aan lagu tukaday rabbi ma aqbalo wala sadaqata min guluul sadaqo tuugo ka timina alla ma aqbalo wax guluuloo la xaday haddaad tidhaa waan sadaqadaysanayaa iyana alla ma aqbalo subxaanahu wa tacaala idan asalku waxa weeyaan shaygu sixadii inuu la yimi oo sixada laba shay baa u shardiya inay waafaqsan tahay sharciga daahir ahaan inay waafaqsantahy maalan salaaddii inay weysadii leeday qibladii inaad u jeesato wakhtigeedii inuu soo galay arkaanteedii iyo shuruudeedii iyo waxeedii inaad la timi intaasi waa daahirkii iyo muuqaalkii wax labaad baa jiro nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay midkiin baa tukada oo salaaddiisa aan lahayn ilaa iyo 9 meelood ama tusucaha humuunuha
nebigu cushur buu riwaayadka qaar baan filayaa inay ka bilaabmayso. qof salaad tukanayo salaadiisa leh marka 9 meelood loo qaybiyo meel ahaan 8 meelood loo qaybiyo meel ahaan ilaa uu soo gaadhsiiyey nus 2 meelood marka loo qaybiyo meel ahaan oo waa maxay salaada intaad soo jeedaabad ajirkeeda leedahay inta qalbigaagu xaadirkayay ee ilaahay aad dhab ula hadlayso ee aad soo jeedaabaad ajarkeeda leedahay idan salaado dhan miyaynu soo wada jeednaa waa maya inta badan salaadaha markaynu gallo waad mashquushaa meel kale caqligu u baxaa waxbaad xisaabisaa wax kalead ku mashquultay intaad xaadirka ahayd baad ajarka leedahay marka waxaa suurtagala dadku inuu safka salaada ku wada jiro hal salaadna wada tukanayo isku ajarna aanu ahayn qofba uu in helay mid baa salaada ku jiro allahu akbar ay ugu wardambaysay markii uu yidhi wuxuu miiraabay assalaamu calaykum markii la yidhi ilaahayna qur-aanka wuxuu ina leeyahay khamriga kuwa caba khamriga ha tukina xataa taclamuu maa taquuluun ilaa aad garanaysaa waxa ku hadlaysaan waxay culammadu yidhaahdaan dadka badh baa adduunyadu sakhraamisay oo aan garanaynin wuxuu ku hadlaya khamrina ma cabin mana joogo asalku waxa weeyaan markaa salaadda waxaad leedahay ajarkeedii salaaddu ma kaa gudantahay haa aakhiro maa tukanin lagu odhan maayo oo mar haddii aada la timi shuruudeedii iyo arkaanteedii iyo waxeedii culammadu waxay leeyihin qofkaa la odhan maayo salaaddii waa laguu leeyahy ama salaadda soo celi laguma laha idan salaadaadi waa saxiix laakiin intaad ajar ka helaysaa intay ilaahay kuu dhoweynaysaa intaad thawaab helaysaa aakhiro intaad ku biiraysaa kuwa ilaahay qur-aanka ku tilmaamaya ina salaata tanhaa cani alfaxshaa'i waalmunkar intaad ku biiraysa intaad noqon kartaa salaadu kuwa ay ka celiso fuxshiga iyo munkarka waa salaada cinda allahi maqbuulka ah waa salaaduu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam maalan mid waa la yidhi habeenkiina wuu tukadaa maalintiina waxbuu yaro xadxadaa nebigu wuxuu ku yidhi ma tukadaa haabay yidhahdeen habeenkii waa nin tukada idan salaatuhu satanhaah buu nebigu yidhi salaaddiisaa ka reebi doonta salaaddiisu hadday tii fiicnay tahay iyadaa ka reebaysa idan sixada inuu shaygu asaxay iyo in rabbi aqbalay oo hawaabatay shay waa kala laba saxiixnimadu waxay ku xidhan tahay acmaasha daahirkeedii inuu sharciga waafaqsan yahay ilaahayna in loola jeeda aan cid kale loola jeedin liyabluwakum ayukum axsanu camala axsanu camalku waa kan culammadu yidhaahdaan waa inuu sharcigana waafaqsan yahay isla markaa waxaynu leenahay calaa maa fi lquluub waa marka koowaad qalbiga waxa ku jira bay ku xidhantahay salaada oo maalan aakhiro nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay nin baa imanaya dabeetana sijillaat min adunuub faylal dhan oo dembiyaa la keenaya kan ma samaysa wax walba uu qiranaya haa buu leeyahy wax camaloo aanu kaa dulminay miyaad garanaysaa may wax xasanaa ma leeday waxba uu garan waayaya waxaa la leeyahay xasano fiican baanu kuu haynaa sijilli baa la keenaya hal faylo quraa la keenaya bataaqa ayuu nebigu ku tilmaamay kaadh baa la keenaya kaadhkaa waxaa ugu qoran tawxiidkiisii kelimatu tawxiidkiisii baa ugu yaalla nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam kaadhkaana meel baa lagu miisaamaya sijilkii kale faylashii kalena meel baa la saaraya waxaa la yidhi kaadhkaa ka xoog badanaya dabeetana jannadu galaya okay waa nin tawxiidkiisa ka xoog batay dembigiisii laakiin axaadiid kale waxay tilmaamaysaa qaar ahlu tawxiida oo naarta gelayaa jirayana axaadiista jahanamiyiinta iyo ka warramaysaa wax allaaliya wixii qalbigiisa iimanuun ku jiro kolba in la soo saari doono oo marka ugu dambaysa xadiidka nebigu uu tilmaamayo jahannamo meelaha dadkaasi galeen oo kale jiirjiirka waxaan la yidhahdaa ka bixi doona waqti ay jahanami gaari doontaa buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam dhiri ay ka baxdo waxay culammadu yidhahdaan waa dabaqada mu'miniinta ku jirta dabaqada kaafiriinta maaha dabaqada kaafiriintu sideedii bay naar u ahaanaysaaye dabaqadii ama meeshii ay kaga jireen dadkii muwaaxidiinta ahaa ee dunuubta sameeyey zinada ku dhacay khamriga ku dhacay boobka ku dhacay dil sameeyey waxaan dadkii acmaasha dunuubta waaweyn sameeyey la ciqaabay ee markii dambe laga soo saaray waa meesha ku jireen oo iyagoo miyaanaya shahaadanime waa shahaadanayeen laakiin waxay leenahay sida salaadeenna u kala xoog badantay ayaa xataa kelimatu tawxiidkeennuna u kala xoog badan yahay quluubta waxa ku jira iyo qofku ilaahay siduu daacad ugu yahay iyo rabbigii siduu u arkayo
iyo macbuudkiisa sidii u weynaynayo waa ku kala gedisanay basharku waa kala gedisan walidaalika nabigu calayhi salaatu wasalaam nin baa meel soo maray markaasuu yidhi kaasi siduu idinla yaagtiinna nimankii la fadhiya saxaabadii waxay ku yidhaahdeen ilaahi rasuulkiiyo kaasi waa rajulun xariyun waa nin mudan bay yidhaahdeen hadduu gabadh ku weydiisto waa nin la siiyo oo hadduu hadlo waa nin la dhegaysto oo hadduu erga kuugu yimaado waa in ergadiisa nin la aqbalo yacni bulshada dhexdeeda waa nin magac ku leh oo wixii uu la yimaado laga aqbalayo nebigu iska aamusay mid kalaa soo maray markaasuu yidhi kaana ka warrama waxay dhaheen kaasi hadduu erga kuugu yimaadona shafaacadiisana mid la aqbalaya ma aha warkiisana hadduu hadlayo mid la dhegaysta ma aha gabadh hadduu ku weydiisana mid la siiya maaha bay dhahay yacni wixii dadku isku qadarin jiree buurna ma wato nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam kaa aa sheegaysaanoo hore dhulka muggiyo kaasaa ka khayr badan buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam dhulka muggiyo ninkan idinka idinla ammaanana waxaa ka khayr badan buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam kaa qura idan ma fi lquluub ilaahay unbaa taalacda taasaa dadkuna ku kala taga acmaasha aynu samaynayno hadday salaad tahay hadday tawxiid tahay hadday sadaqo tahay hadday wardi tahay waa inta aynu xaadirkanay inta aynu rabbi weynaynayno inta qalbigeennu nool yahay kaana waa ku kala gedisanay inuu sharciga waafaqsan yahay markaa camalku wuu ku asaxaa inuu ikhlaasnimada iyo rumayntaada la rumaysa iyo intaad rabbi weynaynaysana ajarkiisaa ku kala bata haddii ilaahay kayrkii dee loola niyoodana waabuu buraa waxaa kaloo jira mawaanic khaariji ah inta hore adigoo wax ka mida soo sameeyey maanic ka baxsan oo diidaya in camalkaaga la aqbalo maalan nebigu calayhi salaatu wasalaam kii curaafayska u tagay ee rumeeyey wuxuu sheegayo ama uba tagay wax soo weydiistaa axaadiista qaarkood waxay tilmaamaysaa 40 maalmood baan camalkiisa la aqbalin idan salaad wuu tukan kana dhici mayso salaadii waa laabudda inuu tukado hadduu salaada tukado waa mujzi ah oo ay asaxdo laakiin qubuulkii dunuubtiisa kala joojisay in xagga rabbi laga aqbalo dunuubtiisa kala joojisay مثلا إلهي وحلا يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى صدقات بحصتان قلت شيء شو يا أذية هيسك جبريننا صدقات لا بحضة واتكشى كأنه ساينتاسو إنك هبل لو حنسيه ملايين ميسين بري بنوي مصاصان وقال كم بانو صبين كم بانو صبين وحي وناك عددك وصمي سطور نبات شيء جنسا واتكفانيسا آخره saddexda naarta loogu huriyo ee ugu horeeya waa nin quraan akhris badnaa iyo nin jihaad badnaa iyo nin waxbixin badnaa saddexdaba aakhira waxaa la yidhaahdaa waxaad ku doonaysaa camalkaaga in la yidhaahdo hebel waa nin deeqsiya laguna yidhi waxaad ku doonaysaa in la yidhaahdo hebel waa qaari intaad adduunka joogtay laguna yidhi waxaad rabtay in lagu yidhaahdo waa geesi dagaalka geesigiina lagu yidhi aakhira waxba ma lihid baa la leeyahy idan waxaa habboon waxay culimmadu odhan jireen ilaahay qur-aanka badda waa ka inoogu tilmaamay in tukfu waxaa la yidhi camalka haddaad qariso iyo haddaad muujiso labadaba waa la aqbalaa waxay dhahdeen haddaad naftaada uga baqayso ama riyaa ama waxa kan inaad camalkaaga qarsataabaa fiican camal qarsiga saxaabada waxay ka gaadhsiisanaayeen xad qof aanay garanaya waxsi xad sadaqada intuu meel dhigo uu ka dhuunto saxaabi baa sadaqo dhex dhigay masaajidka deetana iskaga tegey ku yaro uu dhalay unbaa soo helo iska soo qaatay dabeetana wuxuu yidhi war xagaad ka keentay odayguu garanaya dee wixii iminka bixiyeenayt xagaad ka keento masaajidkan ka soo helay buu yidhi dabeetana nebiga war waa sadaqa aan dhigtay meeshoo dadkaan ugu talagalay buu yidhi nebigaa loo yimi calayhi salaatu wasalaam odaygiina wuxuu ku yidhi wixii aad niyeysataad leedahay inankuna wuxuu heluu leeyahay iska dah يعني وصدقه وأنو ربين حتى قفك قادر يا إنه أجادين سيء يخفي إنه قريابو دوني حديث النبي واكي شيء ضدك تضبط قيامها هرصدا عرش الرحمن كأنه كمدين محي متقعنتي سمدي وحي بيسقعنتي سا بدي حاري وجي ولذلك وحي هذا عبادة مركعة سلا ده هي هلا قاعد ضيدو إن دموج الصابة في عن
marka laakiin aad ajarkuun doonayso ee aanad meesha joogin cidaad leedahay way ku dayanaysaa inaad qarsataaba fiican bay culammadu yidhaahdaan saa daraaddeed baa ilahay wuxuu yidhi sadaqadiinna bilmanni waaladaa ha iskaga burinina almanu gallad sheegasho waxbaan ku siiyey idan waxaynu u baahannahay acmaasha aynu samaynayno aynu ilaahay hortii u samaynayno aynu rabno aakhiro inaynu janno ku iibsanno ku helno bimaa aslaftum bimaa camiltum aakhiro inay janno goyso jannadu waa maa laa caynun ra'at walaa udunu samicat walaa khatara calaa qalbi bashar qofka u janno yaray dunida 10 laabkeed buu leeyahy idan waxa intaa leeg ajarka aynu ku doonayno waa inaynu ilaahay oo qura kula tijaaraysanaa ilaahay subxaanahu wa tacaala sidaa awgeed acmaasheenna waxay u baahantahy inaynu ka dhillo qashinka dhammaantii waxa xaganayoo dhan aynu ka reebno waxaynu isleenahay la aqbali maayadaynu ka reebno walidaalik baa qur-aanku wuxuu inooga warramayaa saalixiinta iyo ambiyada oo acmaal wanaagsan samaynaya haddana ilaahay baryaya inuu ka aqbalo u fiirso camalku samaynaya waa taaco haddana baryada ilaahay buu ku maqan yahay isagoo ilaahay weydiisanaya inuu camalkaasi aqbalo مثلا نبي إبراهيم يا نبي إسماعيل با إلهي كورميا وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك واحد حسطان با يلا لي هي نبي إبراهيم يا نبي إسماعيل مركي أي ساسكا إلهي بيت كي سدقيين كورن إنك عبد صيا وهدنا ربي بريا الله كاغبله وكعبده دسيا نبي إبراهيم يا نبي إسماعيل بيت الله الحرام بي دسيا إيا وكعبده دسيا أي هدنا إلهي ويدي سنيا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم إلهي ونقا أقبل أي ويدي سنيا إلهي قرآن كوحوك قوار رميا مريم هو يديد امرأة عمران مريم هو يديد قفك الدمرة إذا أور لي وحا علوش يدا كجرته إلهي ugu nadartay inay masaajidka siiso oo masaajidka ka shaqeeyo dabeetana waxay leedahay id qaalat imra'atu cimraan rabbi innii nadartu laka maa fii batni ilaahay waxaan nadaray waxa calooshayda ku jira muxararan inuu adiga gaar kuu noqdo u xoroobo un ilaahay cibaadadiisa iyo taacadiisa iyo ka shaqaynteeda ee fataqabal minii bay leedahay waa nadar bay samaysanaysaa ilmaha uurkeeda ku jira ee ilaahay subxaanahu wa tacaala rabtaa inay tidhaahdo adaan kuu nadaray haddana ilaahay waxay weydiisanaysaa maxay fataqabal minii innaka anta asamiicu alcaliim ilaahay oga aqbal bay leedahay ilaahay xagga dambe muxuu ku tilmaamayaa qisada waa taqaaniin inan bay moodayso gabadh bay dhashay waa tii warrantay ilaahay wuxuu leeyahy fataqabalahaa rabbuhaa biqabuulin xasan ilaahay waa ka aqbalay waxaanu ka beeray nabatan xasana baa ilaah yidhi oo dee ciise ayaa maryan laga beeray iyaduna waxay ka mid ahayd dumarkii ilaahay doortay afartuu nebigu yidhi dumarba ma dhammaystirmin afar mooyaane ee culammadu ay isweydiiyaan dhammaystirankaas maxaa looga jeedaa waxaynu arkaynaa nebi ibraahim oo salaad tukanaya laakiin wuxuu baryayaa ilaahay inuu haddana ka dhigo mid salaada ooga siday la faray ula yimaada rabbi ijcalnii muqiima asalaa salaadda inaad tukatiyo inaad oogtaa waa kala macno bay culammadu yidhaahdaan iqaamatu salaa iyo adaa'u salaa waa kala laba nebi ibraahim ilaahay wuxuu weydiisanayaa waana tukanayay haddana ducadiisii waxa weeyaan rabbi ijcalnii muqiima asalaa ilaahay waxaad iga yeeshaa mid salaada ooga wa min duriyati iyo kuwan dhalayba rabbanaa wataqabal ducaa buu leeyay ilahu ducadaa iga aqbal ilaahay wuxuu ka baryayaa ducada ah in salaadiisu salaad xagga rabbi laga aqbalo oo uu oogay inay noqoto idan ayuha alaxiba waxaa fiican cibaadaadka markaad usoo diyaargaroobayso horena inaad mashaaqisha kale iska reebto inaad eegto sharciga inuu waafaqsan yahay in ikhlaas uu kuu weheliyo ilaahay inaad wax kaga doonaysa bini aadam aanaad waxba kaga doonaynin ikhlaasi inuu kuu weheliyo haddana intaa inaad ku darto rabbi inuu kaa aqbalo ma ogid waxa kale aad samaysay in rabbi ka aqbalo inaad raaciso ilaahay qur-aanka qaar buu ku tilmaamayaa waxay sameeyaan cid aqbalaynin rabbi wuxuu leeyahay isagoo qolo munaafiqiina laga warramayo qul anfiquu طawcan aw karha
أما إذنكو طايعين بحية أما إذنكو الله إذن قصبها الله إذن كقادو لن يتقبل منكم بإلهي لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين لا إذن كما أقبل يا بإلهي ويدول فاسقين باتي وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله وكلنا إلهي وحليه واحد ديدي إن لقى أقبله عبادات كودا وحكم إذا قال لي مدودا ديدي هذا بقى أيها الأحبة مكرق إلهي ما آمنان دول خساري مو يعني صحابة يسكو هاللين ما يقبين iyagoo camalkaas sameynaya tirada badan labay hadana cabsanayeen innaga laakiin waxaad moodaa qofkii waxoogaa dadka ka yara salaad bata ama ka gadisnaada inuu isiraahdo adigu ahlu jannah waaweyn baad ka mid tahay aduu kollay dadkan oo dhan waad ka fiicanto ahlu saxwaha tahay ama qoladii diinta u shaqeynaysa baa tahay inuu iska dhaadhiciyo nacam waa fiicantay diinta loo shaqeeyo waa fiicantay in salaadadku waa fiicantay لكن قفك مسلم كاي أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون بإلهي ما إلهي مكر جيسي آمنين إلهي ما آمن مكر جيسي دول خساري مويان نبي إبراهيم والنبي والرسول وعمل سبيني أي هدنا وحلي والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين إلى أهيبان هم قرين يا بولي إنه الدنبي يقول أفهم على قيامة وطمع وهم قري يعني أنا وحنا وذي وان سمي ولنا إلهي بنكر رجق وابوليه إنه الله سبحانه وتعالى يقبله يسوع النبي إبراهيم أيو إلهي بري إلهي نشركي كفوقي واجنبني وبني أن نعبد الأصنام إذن دعاء قفك مؤمن كي مرنا بك ممارمو إن إلهي كما قال شقال نمو منافق نمو الرياء السمعة يستوسن إن إلهي ويدي ستين وأعماشك أقبله صدقة يصون يصلاة يوحد سميسو قرآن كدتك الصالحين تامركو كور رمي وحو كور رمي يقو عبادات عجب قبل إيماني هدنا كوكبي دعاء والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا المركز لقى صوب بلابو إلهي عباد الرحمن مكورما صفات إليه ودوناك سنبك يكورما إلهي وحكوت المامي صفات كودا إنه كمدي والذين يبيتون لربهم سجدا كوا هبين سنية يجو ربي قود السجود سنة قائمة هبين كود وصلاة أي كل ما يستاهل هدنا إلهي وحر راعي والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم وكد عيسان يبري إلى عذابك جهنم أنه ويداري أعماشي ساس صالحة بريا دبصعتا أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربي ميي سمين بايلة هيلي كهبين ودن تاغن وسجود سن وقنوط كتشرة والله بريا هدنا بايلة هيلي يحذر الآخرة آخر هدنا كعبس قباولي ويرجو رحمة ربي إلهي إن حريستي سنة هنقربك هيو الرجينية يعني عمل كيسو قرأكم كافتو مني وحاول الصعدة ورور كان يعبصدة قفك مسلم كهو حصار المركز بيع علماء إلى هذا هدو قفك سيدا أفكره وآنو قرنا إن طاعات كيسا انت الله أقبليا انت كالي أعماشا والسمايا دمانتيد ويلا يرتاي قفك آن وحاسي وغيننا وحو سمايا ويلا تربدين دبتنا وحا كل العجب يا الاستكتاء ويلا بضطاه وحو سلايا هادو دي وحا بدن باد سمايساه شقا بدن باد هايساه وحو موداينو دادك كالي وحديري هاي سادراديد با قفك مسلم كا وحا لغا ربا إنه في جنب الله ويدادا أعماشان إلهي جيست وحير مركا الله إيغو إلهي وحو نمعكو سيي إلهي وحو نمعكو سيي مركا الله إيغو وحير هدي لنا يدادا أكسجينتا إنو نفسنا اللي دين كيبين يا كورا هدي لو يدا وردي بلغا كيبين يا سبحان الله دي أنتي وردن شقا كلمات قبطين سبحان الله دا وإنتا تورد مركا يا كيبين يا مركا إلا مركا تسيحتنا سبحان الله ورن كرميسي مجرد هدي لو يدا سبحان الله بس يسو إذا قفك مسلم كاهي
إلهي وحو النبي محمد تلمامي ولا تمنن تستكثر. الحسن البصري باو حلي لا تمنن بعملك على ربك تستكثره. هشيك شيئا عمل كاغا أديكو موديا إنو وحبدا يا إلهي هو شيئا باللي كما نصمينا وحبانو قبا إلهي هو شيئا باللي واحد لطمي ووحيرون مر هدي في جنب الله لو ايو إلهي قفك قرانيا ee weynidiisa garanaya ee wuxuu xaq inoogu leeyahay garanaya wuxuu sameeyay way la yartay intay doontaba ha leekaatee haddaba ayuha alxiba acmaasha in la aqbalay iyo inaan la aqbalin ilaahay baa og laakiin culamadu waxay yidhaahdaan waxyaabo laga dheehda baa jiro oo istibshaaraat waxyaaba haddaad aragto rajo ku gelinayo aad sileedahay camalkaaga waa la aqbalay waxaa ka mida bay yidhaahdaan cibaadadu cibaaday soo jiiddaa haddaad aragto iyadoo daacadaadu sii korayso rajayso in acmaasha laga aqbalay bay yidhaahdaan haddaad aragto adigoo sii nuqsaamaya dhib baa jirta waayo camalka haddii la aqbalo jidka rabaa kuu fududaada faamaa man acطaa waاttaqa wasadaqa bilxusna fasanuyasirahu lilyusraa baa ilaah yidhi ninka bixiya ee ilaahay ka cabsada ee kelimatulxusna rumeeya ee iimaan la yimaada kaa waxaanu u fudaydinaynaa baa ilaahay yidhi dariiqa fudud oo dhan khayrba khayr buu u dhalaya khayrba khayr buu usii jiidaya wa amaa man bakhila waاstagnaa wakadaba bilxusna fasanuyasiruhu lilcusraa baa ilaahay yidhi ninka gacan adayga ee kaaftooma ee ilaahay ka kaaftooma ee tawxiidka buriye beeniya kaana waddada adag ayaanu u fudaydinaynaa baa la yidhi xumaha alla fududaanaya dadka sharka sameeya maalinba sharkii hore shar ka sii badan buu sameeyaa dadka daacada alla u fudaydiyeyna waxaad arkaysaa maalin walba isagoo sii koraya oo daacadiisu daacadii hore ka badanayso sidaa awgeed baa ilaahay wuxuu leeyahy wayaziidu allahu aladiina htadow huda wayaziidu allah aladiina اhtadow ilaahay kuwa hanuunay wuxuu u kordhiyaa hanuun kuwii hanuuna rabbi hanuun kale u kordhiyaa waxyaabaha cibaadada haddaba lagu kabo waxaa ka mid a culammadu waxay yidhaahdaan camal kasta oo wanaagsan markaad samayso istikfaar baa laga dabageeyaa istikfaar oo istikfaartaas maxay tahay waxay yidhahdaan istikfaartu laba macnay keensataa marna dembi aada gashay ayaad ka istakfurlaysanaysaa ilaahay uga toobad keenaysaa marna bay yidhaahdaan camal aad samaysay yaraantii ama foolxumadii ama dayaca ku jira ayaad cudurdaar uga dhigaysaa rabbi inuu kaa aqbalo tusaale ahaan qofka kuu gala abaal weyn qof baa abaal weyn kugu leh adna wax badan oo aada ugu abaalgudid ma haysid dabeetana maalin baad qado u samaysa qofkani abaal aada u weyn buu kugu leeyahay qadow wax u cuntama maaha laakiin qadada markaad siiso ee uu cuno bini aadamku cudurdaar bay markaa raaciyaan markaasaa waxaad leedahay wixii aada abaal ii gashay dee beriisaan ku siiyey kuma filla ilaahay unbaa kaa abaalmarin marka ama waxbaad siisay hadyad baad u geysay waxaan aad siisay inuu aqbalo aada u abaalgudaysana waad u sheegaysaa waxaad kaloo u sheegaysaa inay tamartaa tahay inta tani oo aanad abaalku kugu lahaayoo dhan aanad wada gudi karin marka cudurdaarad bay dadku raaciyaan bini aadamku waxay yidhaahdaan walilaahi almathalu alcalaa waxaa la mid a cibaadaadkaynu samaynayno cibaadaduni salaad baynu tukannay nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu salaada tukado asalaamu calaykum markuu yidhaahdo kow wuxuu bilaabi jiray 3 goor inuu yidhaahdo astaqfir ullah astaqfir ullah astaqfir ullah innagana saasaa layna faray inaynu yeello sunnada ah markaad salaada ka baxdo inaad istaqfirulaysato ma dambaad gashay ila salaad baaba tukanaysa maya waxaad leedahay ilaahu salaadaydu tu kuu cuntanta maaha tii la rabay waa ka gaaban tahay wixii nuqsaan ku dhacay salaadayda ayaan ilaahu ka istaqfirulaysanaya wax iga aqbal weeyaa
سأوجد علماء واحد هذا عبادات كواوين ودن مركها أكتو أما قرآن كقصارته أما السنة كقصارته وحضرك سيده استغفار دبط الله مثلا حجك قفك مؤمن كي وحج تجا سفر كايس وقالي حول إيو دال بوكو بحيي وحربين الدم جسك صوم ما يروح بنان عرف الله إلى هذا إلهي يستاجا بنان كيبو يستاجي قلبت صودن إلهي بري باليدي قلبت يودن بو إلهي بري سور رق ما باليدوك صود دريرة مزدلفة ما الله إلى هذا كاليا إلهي وحين لي مركز ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم كصود دريرة ما شدت كصود دريرة قريش بيورن شرتي أنا وحمص بنا الله إلى هذا يو نافي ما إنه حرمك عرف فيكم شرت حرمك وخارج الحرم marka iyagu halkan sokay musdalfiye monay meelahan bay sii fadhiisan jireen ilaahay wuxuu yiri halkan aan fadhinay baxa arafataga soo dareera wastaghfirullaha inna allaha ghafurur rahim culimadu waxay yiraahdaan maanto dhanbaaba cibaado loo taagnaad ilaahay bariyeysay waxaana lagu yiri cibaadada marka dhammaysaan dareertaan istighfaarka dabagee macnaheedu waxa weeyaan bay leeyihiin ilaahay oo aad leedahay waxaan samayn karay intaas uu noqday ilaahay iga aqbal aad leedahay إلهي وحكى ورما يدول جنة جلية وبراري كوا جنة جلية الصفات كودا إلهي نوشيك وحلت المامي قليلا من الليل ما يهجعون هبينك إن يربي سحدان با إلهي كانوا قليلا من الليل ما يهجعون با إلهي وحير هبينك انت كالسحدان واتو كذا حدنا إلهي وحده وبالأسحار هم يستغفرون وقت السحور كمركا لقاعدنا استغفار بلابان waxay yiraahdaan culimada sunnadu wax weeyaan habeenkii waxa tukan karta tuko marka salaada subax xurteeda waxa ugu fiican la qabtaa bay yiraahdeen waa istighfaar inaad u baxdo inaad ilaahay dambi dhaaf weydiisato waxay culimadu yiraahdaan salaadii badnayd ay sameeyeen waxay ku gabagabeeyeen istighfaar sida awgeed عملك الصوبان مركات سميسو استغفار بلا دبقية إلهي وحليه فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات أقوى إلهي لي ربي إنه كليه كي حق له عابده عبادة كليه إنه ليه هدنا إلهي وحو الراعي واستغفر لذنبك إلهي ندم داف ويديسو إذن أيها الأحبة عباداتك وحي دونانا النقضة نبي محمد عليه الصلاة والسلام صدح يا لباتن سنة ضد بدين تنفافيني وميل فوقي ميل دوبة وتجي ودقال وقالي ومشاكل ودم يوصق بصدق هذا الصورة دي قدام بيسي يا أتمي مركي يوسوق لباتن يصدح سنة جهاد كدبدي إلهي وحفرين وتصبيح دي استغفار تبتصده إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا هذا دركتبه ليري يدا وكوتمي إلهي جوشي سي فرشديس وهذا ركتضت كود دينته كوح كوح سوق ليه وقت جاب بني آدم كوف فرحاد أو شيكتا وكا وقولي سنة بربرادنا يدو قاضا لكن إلهي النبي محمد يقول إيه هذا دركته إلهي جوشي سي هذا شيء يدت كيو دينته كوح كوح وقليه أديك الشقادة دمرك هالنقطة بالليل محي فسبح بحمد ربك واستغفره إلهي والتصبيح صادق وكل هي ما هاد نقيسه استغفارنا كجبا جبا بالليل واستغفره إنه كان توابا إذا النبي محمد عليه الصلاة والسلام إلهي وحلي وحياد عمل صوصة ما يسي استغفارية تصبيح كجبا جبا ولذلك نبي عليه الصلاة والسلام وحي صورة كدم بيه وحلا هذا ركوع دي سي سجود دي سي وحورنشري سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي بورنشري أيها الأحبة أعماش الله قبنا أيها مثلا صونكي وإنه إلهي وصوني وحلا يريد الزكاة بحية markuu dhamaado zakadaasi waxa la yiri waa tahura lisaa'ib wixii ka dhacay soonka ka xumeynayay ayay tahiraysaa amaasha midba lagu kabaa hadaba waxa haboon dadka muslimiinta ah inay marka hore cibaadaadka ku dadaalaan
وعبادة إني أصحدو تي ربي أقبلي إني تهيئ إن كلينا مركو هره بيسو وكو عبادة إن دقونو يالط حيكو أصحدها حيكو برتاه سيدان بان كسو غاري دادك أما دادكو بسيدا سو يالها سمين هداي الصلاة هداي التوحيد هاي وحان أركي قف دمرة ووقتي أن لكل مي أن سلاي ملايين لحدا سنة غاري سويتو كنيسي فاتحة آخر بانا دي اهدنا الصراط المستقيم أبا يخرد يعني قف انت تكنيي وهدنا عبادة ديسي فاتحة آخر سكيدي ولي وحقل دنيي وعجب إذن قفك مسلم كاي ما انتاس بيده وين ملعامد بلاوضي سي فاتحة يده صحته ودينته يده صحته قفك مسلم كاي عباداتك وسميسانيو waxa haboon inuu marka hore garto maxay ku asaxdaa wixii sharcigu u dajiyay kow waxay ku asaxdaa ikhlaas in looga danleeyo ilaahay aad ugu dhawaanayso waxay ku asaxdaa wixii burinayay ama nuqsaaminayay ama ajarkeeda yareynayay inaad ka ilaaliso waxaad u baahan tahay markaad la timaado inaanad isla weyni iyo cujbi iyo riyaa iyo waxaas aanu kugu dhicin aad ilaahay baryadiisa ka dabageyso inuu ka aqbalo rabbana taqabbal minna inaad ka daba tiraahdo waxay u baahan tahay inaad istighfaar ka dabageyso inaad ilaahay u toobad keento oo istighfaar ka dabageyso ilaahay waxaan ka baryaynaa subxaanahu wa tacaala inuu acmaasha saalixa inaga aqbalo waxaynu dartii u qabanayno in rabbi subxaanahu wa tacaala inaga aqbalo rabbi waa kariimun xayiyun ilaahay wuxuu isku tilmaamay mid deeq badan oo xishood badan inuu yahay وأدون قعمها وسوتاجي أنكو علدين يا أقبله دينو إلهي بريدي سبضينه ربي طريقة الصحاوين تصيا أن إلهي برينا سبحانه وتعالى ددال كان أن بتصنه وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين